السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا يوتيوب channel كيغا أصحابتا قروحدا بدن وان إيدين حيساي بريهان فيديو مان صودوبن واسكايانا مشغولي maanta ayaa idin soo noqday fiidiyoogina mani igalaawin fiidiyooga xaatada ah iyo sidaan isku cateeyay insha Allah waa idin soo wada maanta waxaan keenay fiidiyoogan bastadan habkan casriga oo aad u macaan oo sida u kariyo inaan ila wadaago oona si aad u fudud oo waqti badan kaaga baahneen aad u karsan kartid daawasho wacan haddii aad ka hesho daawashada fiidiyoogan fadlan ha inaga ilaawin inaad subscribe ka noo saarto like tana siiso share noo dhahdo commentigaagana wixii ra'yi ah nagu soo dhiibato commentiga aad ayaa idinkaga mahadcelinaya haddana halkan waxaa inoo saaran biyihii baastada dabka biyo ayaan saartay baasta waa taqaaniin lama sheegayo saliid iyo cusbo ayaan ku daray biyihii aad dabka saartay baastada aan sii hor saartay marka hadda halkan waxaan ku haystaa baaquli waxaan ku shubay maraq digaaga budada ah aan ku shubay haddana waxaan ku shubay red chili flakes ama basbaaska la qalajiyo qolfihiisa haddana waxaan ku shubay filfisha powderkeeda haddana waxaan ku shubay garam masala kan kalena waxaa waaye mix xawaaji kan cadna waxaa waaye toonta powderkeeda halkan waxaan ku haystaa chicken la soo qalajiyay oo qoyaankii laga qalajiyay tissue baan ku soo qalajiyay haddana waxaan ku daray spiceski aan isku soo qasay ayaan ku daray marka hadartaan si fiican ayaa u marmarinaya spiceska si fiican ayaan lafaha uga dhex gelinaya haddana dabka waxaan soo saartay digsigii aan ku dubi lahaa chickenka asxaabay digsigan waxa uu dubay waxay tahay waxaan rabaa digsiga aan baastada maraqeedan ku karin doono waaye marka waxaan rabaa dhacaanka iyo flavorka ka baxo chickenka inaan ku kariyo baastada maraqeeda marka hadartaan chickenka waxaan sameynaya waan dubaya waa gaduudinaya si fiican ayaan u karinaya dabkana waa low dabka ma dheereysna maanta dhanna sidaas ayaan u gadgadinaya sidaas ayaan ku soo wadaya ilaa uu gaduud ka noqdo inuu qalalo qaleel zaaid noqdo chickenkana looma baahna marka maanta dhan dul taagnaaw gadgadi marna dabool marka dabkana low ha ahaado dabka ha gaabsanaado haddana halkan waxaa inoogu diyaar ah biyihii baastada oo karkaray waxaana ku shubayaa baastadii waana ku daboolaya hadda halkan waxaa sida uga jeedaan digsigii aan ku kariyay chickenka aan ku dubay maanan ka dhaqin dhacaankaas iyo flavorkaas oo ka harharay chickenka ayaa waxaan hadda ku daray basal iyo toon la isku soo shiiday marka wax saliid ahna kuma daraayo chickenki ayaa saliid fiican ku dubay marka saliida badan ma fiicna marka saliid dhacaankii chickenka iyo saliid yareed ka hartay aan ku dubay unbaa ku karinaya maraqa baastada marka hadda halkan waxaan ku shubay yaanyo aan soo shiiday saddex xabo yaanyo aan soo shiiday ayaan halkan ku darayaa marka yaanyada sidaas ay u kartanay si fiican sida ay u noqoto dhacaankii iyo biyihii ee dhameysato biyihii ee gursatana waxaan sameynayaa xawaajiyadii aan soo qasayay hadaay iyo yaanyo shiishiid ayaan ku darayaa xawaajiyadii hadaay aan qasayay chickenka ku darayay xoogaa yar iga soo hara dhinac dhigtay ayaan ku darayaa iyo yaanyo shiishiid yar
marka hadda sidaan yaanyada si fiican ugu soo kariyay shishiidkii iyo biyahana gursato. hadda waxaan ku darayaa caanaha heavy creamka ama caanaha culus oo creamka ah ayaan ku darayaa. caanaha creamka baastadan aan sameynayo waa loogu talagalay, aad ayayna u macaan tahay markaa ku darsatid baastada. iyada waa waxa macaaneynayo iyo cheeska ama farmaajo sidaa u taqaanid, labadaas ayaa muhiim u ah baastadan hadda aan sameynayo inaad ku dartid. asxaabta quruxda badan, hadda maraqeyn waa inoo diyaar. hadda waxaan ku daraynaa baastadii. marka hadda sidaan ay noqoto maraqa iyo ka adkaanin, xoogaa yar dhacaan ha lahaado, baastada macaan ayay u yeelay. baasto qaleel mala cuni karo. marka hadda baastadii ayaan kusoo geshidinayaa ama kusoo shubayaa. marka isku qasayaa, si fiican ayaa isku qasayaa. haddana sida ujeedaan waxaan ku shubayaa red chili flakes ama basbaaska gaduudan oo la qalajiyay qolqolfihiisa. marka kuleel zaaidna ma aha, asigoo kululaa jiro, marka kan kuleel zaaid maahan. waa ku darayaa baastada, macaan ayuu siinaya, kuleel yaroo meel dheer oo macaan badan. haddii aad ka helin basbaaska waa ka dhaafi kartaa, ama kuleel ku dhibaayo waad ka dhaafi kartaa. haddana waxaan ku daray farmaajo aan soo hoolay. haddana marka aan si fiican isku dhexgeliyay cheeskii iyo baastadii, dabool ayaan saaray. dabkaagana waa inuu gaabsanaadaa, dabkaaga yuusan dheeraan, haddii kale salka ayuu kaga dhagayaa baastada. haddana si fiican ayaa haddana mar labaad iskugu qasayaa si ay cheeskii iyo maraqii dhacaankii wixii dhan isku dhexgalaan mar labaad. marka haddana sidaas ayaan usoo daboolayaa. haddana waxaan ku darayaa kabsar caleen aan soo jarjaray ayaan korka uga daadinayaa si ay dhadhan macaan ugu yeesho kabsar caleenta. asxaabta quruxda badan, haddana sidaa ujeedaan halkan waxaan ku jarjaraynaa chickenkeeni aan soo dubay hadaayeeto ayaan halkan ku jarjaraynaa sida loogu cuno baastada. haddana baastadeena waa inoo diyaar. waxaan rajeynaa inaad ka hesheen daawashada videogan. haddii ay tahay markaa kuugu horeysay aad soo booqato youtube channelkeyga, aad ayaan kaaga mahadcelinayaa. kusoo dhawaaw groupkeyga yar ama youtube channelkeyga yar, familkeyga yar, kusoo dhawaaw. aad ayaan kaaga mahadcelinayaa. waxaan rajeynaa inaad ka hesheen dhammaantiin videogan daawashadiisa. asxaabta quruxda badan, waxaan rajeynaa inaad like-ta ii saari doontaan, inaad asxaabtiina la wadaagi doontaan, inaad igu dhiirigelin doontaan commentiyo dhiirigelin leh. aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa daawashada videogan. haddii ilaa halkan kusoo gaartay, aad ayaan kaaga mahadcelinayaa. jasaakumullah kheyr. haddana waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.